Asalaamu calaykum daawade. Waa mar kale iyo muuqaal kale. Wararkii Afghanistan ayaan markan dib ugu laaban doonaa. Xiisadda Afghanistan, heshiiskii cajiibka ahaa ee go'aamiya mustaqbalka dalkaas. Maxay xarakooyinka muslimiinta ee hubaysan ka dhaheen Taliban? Fariintuu madaxweyne ku-xigeenka Afghanistan soo diray. Dumarka reer Afghanistan oo mar kale ka soo muuqday shaashadaha TV-yada. Maaleysiga hogaamiyaasha Taliban oo 20 sano kadib soo afjarmay. Muuqaalkan ayaa intaas ku soo koobi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkii ku soo gaaro, bartan waa xogta qarsoon. Aniguna waxaan ahay Yaxye Maxamuud Maxamed. Wixii bixis iyo la joogis waa ay ku furan tahay, balse waxaan kaa codsan lahaa inaad ila saaxiibto oo aad channelka subscribe saarto. Hagaag daawade. Afghanistan ayaa maalmahan waxaa haystaan guud ahaan caalamka, waxaana dalkaas gacanta ku wada dhigay kooxda hubaysan ee Taliban. haddaba qaybta koowaad waxaan kaga hadli doonaa heshiiskii cajiibka ahaa ee go'aamiya mustaqbalka dalkaas. Ka bixitaanka ciidamada caalamiga, Taliban waxay isku fidisay dalka oo dhan, waxaana ay qabsadeen ku dhawaad magaalo kasta. Haddaba muxuu Mareykanku ogolaaday inuu baxo 20 sano oo dagaal ah kadib? Sanadkii 2001 NATO ayaa ku khasabtay Taliban inay ka baxaan Kabul kadib weeraradii 11 September ee New York iyo Washington. haddana ku dhawaad 20 sano kadib, hogaamiyaasha kooxda xagjirka Islaamiyiinta ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda Afghanistan, ayagoo si farxad leh sawareys kaga soo qaaday madaxtooyada, iyadoo ku dhawaad waddanka oo gacanta ay ku hayaan. Waxa ugu yaabka badan ayaa inaysan ahayn guuldaro military oo musiibo ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa NATO horseeday dib u soo noqoshadaas, laakiin heshiis nabadeed oo si taxaddar ah loogu wada hadla ayaa keenay. waxaana keenay heshiisku uu saxiixay hal madaxweyne uu ku hirgeliyay kii isaga sii bedelay. muxuu Mareykanku u aqbalay inuu la heshiiyo Taliban? Maalintii ka dambeysay markii ay burbureen daarihii mataanaha ayaa madaxweynihii Mareykanka George W. Bush ballan qaaday. Dagaalku wuxuu qaadan doonaa waqti, laakiin dulqaadka waad guuleysan doonaa. Xaqiiqda Mareykanka weligii kuma dhawaan inuu guul military ka gaaro Taliban, inkastoo kooxdu ku abtirsadaan xagjiriinta Al-Qaacida oo mas'uul ka ahaa weeraradii 11 September. haddana si degdeg ah ayaa loogu saaray magaalooyinka awoodda NATO iyadoo la adeegsanayo, waxaana ay ku qaadatay dhowr sano inay dib isu soo abaabulaan. 2004 waxaa bilowday kacdoon ka dhan ah ciidamada reer galbeedkii dowladda cusub ee Afghanistan. iyadoo laga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee weerarada, ayaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka Barack Obama waxa uu bilaabay sanadkii 2009 inuu aad u kordhiyo tirada ciidamada NATO ee dalkaas lana gaarsiiyo 140,000 oo askar. tani waxay gacan ka geysatay in Taliban mar kale dib loogu riixo, laakiin saameyn yar oo aan muddadeedu dheereen ayay noqotay. iyadoo iskorimaadku noqday dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku oo ay kaga baxday lacag lagu qiyaasay $978 bilyan iyo in ka badan 2,300 oo qof. inkastoo tirada ciidamada Mareykanka ee la dilo sanadkiiba ay aad u yaraayeen kadib markii si rasmi ah ugu dhaqaaqeen tababarkii kaalmada taageera 2014, madaxweynaha Afghanistan ee Ashraf Ghani ayaa sheegay 2019 in ka badan 45,000 oo askar oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada Afghanistan ay ku nafwaayeen 5 sannadood ee hore. isagoo wajahaya xaaladaas ayaa ninka xilka kala wareegay Obama, Donald Trump wuxuu bilaabay wadaxaajood isagoo xoogsanaya inuu Taliban la galay, wuxuuna saxiixay heshiis Febraayo 2020. waxay ahayd waxa ka farxiyay inuu ka hadlo markii uu ku jiray diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee sanadkaas. waxaan kala soo baxaynaa Afghanistan ciidamadayada ee waa inaad taa fahantaan, ayuu ku sheegay Axios News. waxaana halkaas joognay 19 sano, waan ka soo bixi doonaa, ayuu yidhi. haddaba heshiiskaas muxuu dhigayaa? Mareykanka ayaa ogolaaday in ciidamadiisa ku hadhay Afghanistan laga soo saaro, waxayna Taliban ku sheegeen inaysan u ogolaan doonin Al-Qaacida ama koox kale oo xagjir ah inay ka howlgalaan meelaha ay maamulaan. waxaa kaloo ay sheegtay 5,000 oo maxaabiis Taliban ah in lagu bedeli doono 1,000 maxaabiis oo ka tirsan ciidamada Afghanistan, iyo in cunaqabateynta laga qaado kooxda xagjirka Islaamiyiinta ah. heshiiska waxa uu toos u dhexmaray Mareykanka iyo Taliban, iyadoo qorshe u ahaa in Taliban ay wadahadal la gasho dowladda Afghanistan kadib si loo go'aamiyo qaabka iyo cidda xukumi doonta dalkaas mustaqbalka. ciidamada nabadgelyada Afghanistan oo lagu tababaray lacag dhan $88.32 bilyan oo askar tiradooda lagu sheegay in ka badan 300,000 oo askari, ayaa isla qaatay inay ahaan doonaan kuwa ilaaliya xaaladda inta wadahadalladu ay socdaan. madaxweyne Trump oo ku tilmaamay heshiis cajiib ah sida uu sheegay la taliyihiisa nabadgelyada qaranka ee xilligaas John Bolton, wuxuu si cad u sheegay in qorshahaas uu ahaa fursad aad u wanaagsan. haddaba labada dhinac miyay fuliyeen heshiiska?
Mareykanka markii ugu horeysay ayuu bilaabay in ciidamadiisu kala baxo. Trump ayaa wadahadal foolka fool u dhexeeya Taliban iyo dowladda Afghanistan bilaabay bishii September. Inkastoo aanu jirin horumar haddana kuwa ka soo horjeeda Taliban ayaa markii lahaa waa in heshiiskaas noqdaa mid aan horseedi doonin musiibo. Bishii July ayaa afhayeen u hadlay Taliban sheegay inkastoo aan ku leenahay goobta dagaalka awood haddana waxaan naga go'an tahay inaan wadahadalada wixii ka soo baxaa meel marino. Madaxweynaha hadda Mareykanka Joe Biden oo inkastoo uu ku khilaafsanaa Trump siyaasad kasta oo kale haddana wuxuu sii waday inuu fuliyo heshiiska isaga ka horeeyay. Inkastoo uusan jirin horumaro haddana arrintaas waa ay dhacday waana la wada fuliyay. Sidaas ayuu ahaa heshiiskii mustaqbalka ku riday guud ahaan dalka Afghanistan. Haddaba maxay xarakooyinka hubeysan ee dunida ka yireen Taliban? Ururada xarakooyinka muslimiinta ee hubeysan ayaa sheeda kor ka eegaya bal inay Taliban soo dhisi doonto dowlad Islaami oo shareecada ku maamusha. Ururadan marka laga reebo dowladda Islaamiga ISIS waxay sii wadaan damaashaadkooda ku aadan guusha taariikhiga ee Taliban iyagoo u arkay inay faa'iido u tahay dhaqdhaqaaqyadooda Islaamiyiinta ee adduunka. Qaar ka mid ah siyaasadaha arrimaha dibadda ee Taliban sida fariintooda togan ee ku wajahayo dariskii dalal kale ee gobolka oo ay ku jiraan Shiinaha iyo sheegashadooda inay rabaan inay dhisaan dowlad loo dhan yahay oo matalaysa dhammaan taas kuma farxayaan kooxaha mayalka adag oo ay ku jiraan taageerayaasha Al-Qaacida. Dhanka kale ISIS ayaa si weyn ula tartamaysa Taliban iyadoo aaminaan caadi ahayn tartankooda. Kooxdu waxay sii waday sheegashada weerar yaryar oo ay ku qaaday Taliban oo ay ugu yeerto maleeshiyaadka ridoobay. Daesh ayaa ka carootay guulaha uu gaaray kooxda ay xifaaltamaan waxayna u badan tahay inay sameyn doonto wax kasta oo awooddo si ay u burburiso dagaalka Taliban oo ay u xasiliso maamulkeeda. Dhanka kalena fariin ayuu soo duubay madaxweyne ku-xigeenkii Afghanistan. Madaxweyne ku-xigeenkii Afghanistan Amur al-Salah oo ah ku-xigeenkii madaxweynaha baxsaday Ashraf Ghani ayaa sheegay inuu isaga yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalkan. Salah ayaa fariin cod u soo duubay waxaana baahisay BBC-da. Wuxuu xaqiijiyay isagoo jooga Afghanistan intaas inuu ku daray in dagaalku dhammaan si lama filaan ay Taliban ula wareegeen caasimadda Afghanistan ee Kabul. dalalka caalamka ayaa walaac arrintan ku muujiyay waxaana ururkan ay ka damacsan yihiin dalkaas. Afhayeenka Taliban kaasoo qabanaysa shir jaraa'id oo ugu horeeyay ayaa sheegay in dhammaan jihooyinka xuduudaha ay gacanta ku hayaan. Soo shaabixinta madaxweyne ku-xigeenka hore fariintiisa ayaan loogeen waxay kaga jawaabi doonaan Taliban. haweenka ka shaqeeya TV-da dalka Afghanistan shaqooyinka ay dib ugu noqdeen ka gadaal markii talada dalka si buuxda ay la wareegeen ururka Taliban. TV-ga la yiraahdo Tolo ayaa dib u howlgalay iyadoo haweenka ka shaqeeyana ay howlahooda u wataan sida caadiga ahayd. TV-ga ayaa si ku meel gaar ah wada loogu saaray markii uu isbedel ku dhacay. TV-ga Tolo News ayaa intaas ku daray in baahintooda sida caadiga ah u shaqeyn doonto haatan wixii ka dambeeya. haddaba ugu dambeyntii hogaamiyaasha Taliban ayaa markii ugu horeysay muddo 20 sano kadib dunida wada xaajoodiyadooda u soo bandhigay iyadoo aan isqarinayn sida sargaal sare oo ka tirsan ururka u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. waxay si weyn ugu soo horjeedaan 20kii sano ee la soo dhaafay inay la arko xilligaas hogaamiyaasha Taliban inta badan ay ku noolaayeen dhul Malaysia. Talaadii afhayeenka ururka Zaybullah Mujahid ayaa ka soo muuqday shirweynihii ugu horeeyay ee Taliban tan iyo markii ay qabsadeen Afghanistan. saxafiyiinta ayaa ula yaabay markii arkeen wajiga nin sanado badan ku shaqeynayay si dhow Malaysia. sargaal sare oo isla ururka Taliban ka tirsan ayaa sidoo kale u sheegay Reuters in xubnaha Taliban lagu amray inaysan u dabaaldegin guusha ay dhawaan ka gaareen dalka Afghanistan. wuxuuna intaas ku daray in dadka rayidka ay ku wareejiyaan hubka ay hayaan. afhayeenka Taliban Zaybullah Mujahid ayaa sheegay in ammaanka guud ee dalka Afghanistan uu sugan yahay kadib markii wax laga weydiiyay in goobaha gacanta ay ku hayaan ay ka dhacayaan dilal iyo afduubyo. guud ahaan daawadayaal muuqaalkeeni maanta waa naga intaas. haddii ilaa dhammaadka daawato waxaan ka codsanayaa inaad share garayso nabadgelyo.